islaamaha oo inta lagu soo daro ama gabar eedo u yihiin ama qaraabo u yihiin markay Mareykanka imaadaan jecel ilmahooda inay sharaf u yeelan gabdhaha kala nacaayaan ama waxba ha isku ahaaneen magaalada hadda isku taqaanaan oo kale sida aniga oo kale Niciimo Joker oo kale wadada ay ku taqaanid oo kale you don't have to inaa caysid gabadhaadana ay ka dhigto buur teeda kaleeto gabdhaha waxaan ku waaninayaa waalidkooda is joogin oo la caynayo inay ogaadaan waxaysan ahayn inaysan qabanayn waayaan qofkay kaaga xishoonayaan wiil walaalkaayo nimanka kaa celinayo iyo gabar walaashaayo naagaha kaa celinaysa iyo hooyada iyaga lafaca kulli habrahay horta abbaaya inay ku dhahaanaba laga yaabaa kulli waa ku facaysanayaan habrahoo dhan horta abbaaya ku dhahayaan waxay kuula xintamayaan sidii inay isku factihiin oo kaleeto marka waxaa lagaa rabaa be strong okay isdifaac horta number 1 number 2 strong noqo shaqayso ha u baahanin prove them wrong waxay sheegayaan inaad ahayn okay halka mid uga dabaalan karti intaas aan arkaa and to be honest with you I'm one of you guys so that's what you can survive strong person markaas aad samaynaysa gabdhaha jilicsan maxaa ku dhaca marka wixii run u qaataan qalbiga ka jaba wixii la sheegayay noqdaan ayagoo ahayn so marka please don't need this kajabin please beentood waa wixii sheegaan wallahi billahi waa beentood you not Soomaalidu waxay u taqaano qofka caqliga badan oo balaayada ah iyo waxaan rabay tuubigaasna inaan ka hadlo iyo Soomaalidu qofkii doqonka u taqaano okay anigoo kaleeto Soomaalidu doqon bay u taqaanaa maxaa yeelay daacad baan ahay dadka daacadda doqomay dhahan Soomaalidu dadka booliis u yeera oo training order ka goosta oo islaamaha masaakiinta loo gooya oo habraha caaya oo dadka deyn ka qaata oo ummadda xumeeya anigoo qofka saas u xuna kulligiin aniga afaan ii tihiin oo jeceshiin reason kama taqaanaa maxaa yeelay Soomaalidu waxay caqliga u taqaanaa qiyaamada iyo xumaanta iyo qofka laqdabada badan baruufiyaan tahay oo qiyaamo badan tahay Soomaalida xaggooda fariid baa ka tahay balaay ka dhacday gabar daacad oo maskiin haddaa tahayna doqonta ilkaha waaweyn waa use garayaa bay ku leeyihiin Niciimo Joker ahaan ayaa secret idin sheegay horta ani dadka daacad oo iska suufiga ahaan jiray dad badan baa marka message ii soo qoray aqoon jiray moogta suufinimadeedii daacaddeedii doqon iigu qaateen moogta allah ma ogeyna saa u caqli badan tahay wallahi billahi so smart I couldn't believe when they told me that qof ii soo qoray hadda ka hor waraaq miyaa ku qortaa macnaha ma qof baa kuu soo sheega see u akhridaa yaa qof ii soo qoray wallahi weligeyba inta ma soo dhigan kelmadu isticmaalo wuxuu dhahay in a million years inaan adiga kuu malaynaa qofkaas tahay I can't believe it man soo dhan waxaa idinku sheegayaa Soomaalida qofka daacadda ah honesty-ga ah trust gareeya inay doqon u yaqaanaan moogta waxaan oo dhan waa dadan soo trust gareeyay qofba qofku ka qiyaamo badan yahay buu ku doqonsan yahay horta anaa kuu sheegaya second caqli ilaahay kuma siina ummadda ku dibin taabiyayso inaa wax ku tarto ilaahay kuu siiyo caqliga marka saas ogaada waa in salaamaya subax wanaagsan caqligana ha u qaadanin kaaga yarkoo ku siiyay inaa ummadda ku dhigto waxaan gaaray doqon waaye intay soo dhaaftay way waalan tahay ay dhahaan saa isaga daynaa iska daa ilaahay dartii isaga daa naaniciina u samir doqon waa lii ii gaar kaleeto dabeecad kalena way yaqaanaan Soomaalida markaa runta u sheegto haddaa runta u sheegto waxay ku leeyihin way dabeecad xun tahay kelmadda ay dhahda ma arkaysa runta ma jecla ayaga ها وحي يقانان dabeecada iyagoo been ku sheegana u qosasho yalla billah you so funny na beenta iga daahdaada wax kula dabeecad xunta mad wax baranaysa intay jaamacad la dhiganay inta dhakhtarnimo la baranay anuu Soomaali baan baranay anoo doqon oo waalan oo daacadan ku dhex jiray ma garat oo doqon waa waalan tahay waasaan ka xaxaadihe all your bullshit been iyo qiyaamay munaafiqnimo inta ka sheegada warwaan salaamaya subax wanaagsan marabna dagaal baan ku afurnaya ma ciila ay qabtay wallahi kaleeto one last thing hadda daacad tahay naaga xataa saaxiibtinimadaada ma jeclaanayo because in dad xantaan oo dad qiyaamana artaan naga daa marka dhowr jir dhaad boornin kugu noqon gabar yar hadda tahay ay daawanaysid caqligeeda wali koraayo naag haday saaxiib kula noqon weyso that means waxa weeye isku liig matiin waa ka sareysaa okay third thing gabadhaas yar waxaan kaloo kula dardaarmayaa haddaa aragta cadowgaaga inuu batay waxaa ogaataa inaad fiican tahay qof fiican tahay qodobka ugu muhiimsan kan waay oo aniga idilay weliba always aan ka fakeri jiray why but today I'm gonna tell you this is important qof muxuu igu nacay hadeen
quruxdaada qof kugu nici karaa quruxda aa qurux badan tahay wanaagaaga qof kugu nici karaa ismaila lagugu nici karaa baabuurka aad haysataa lagugu nici karaa iyo guriga aad degan tahay noloshaada dad waxaaba jiraba aan bukuu quurinoo jiranaya markay arkaan noloshaada biliis waa idin baryaaya anay igu dhacdo qof kale walaalkay inay ku dhacdo marrabo weligaa niyadda ha isaga jibin qofka muxuu igu nacay maxaan ka sameeyey weligaa ha dhihin anay saadkaas isoo martay iyo kusoo qaadan haa mistake inaan ka gashay waxba kama aadan gelin ayagaa xanuunsan waa iska kaa naceen maba taqaanide maxaa ka samayn kartaa you don't know them tusaalihii ugu dambeeyaa soo qaadanaa dadka aan hadda ka sheekayna annagayba nagu dhex jiraan maalin kasta kuwa cay ii soo qoro they don't know me maxay igu dhaceen tusaalihii ugu dambeeyaa soo qaadanaa dadka aan hadda ka sheekayna annagayba nagu dhex jiraan maalin kasta kuwa cay ii soo qoro they don't know me maxay igu dhaceen asteen gabdhaha maaragtay isoo wacay maanta oo dhan barnaamijka intaan sameynaya waa idinku soo wada celin doonaa barnaamijkaan sameynaya raalli ahaada baay macaano